waxa saaka aroornimadii ka soo degay gegada diyaaradaha ee magaalada Heathrow maayir xigeenka magaalada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Cagaweyne maayir xigeenka ayaa halkaa waxa ku soo dhaweeyay safiirka wareega ee Soomaaliland mudane Kaysar iyo jaaliyada reer Soomaaliland ee degan magaalada London iyo Bristol ba hadaladiisina waxa ka mid ahaa sida tan dalkaygana wuxuu daaray bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillah allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda in saxaafada ambassador Kaysar oo aad iyo aad halkan ugu mahadnaqayo odayaasha dadweynaha soo dhaweeyay TV-ga qaranka waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaanu u nimi safar waxaana soo macsuumay oonu mataanaynaynaa mayorka Bristol lordka mayorka Bristol waxaanu samaynaynaa haddii ilaahayna waxaan la kulmi doonaa jaaliyadaha dhammaan ingiriiska degan inta waqtigay ugu saamaxo oo ay u horeyso jaaliyada Bristol waxa kale la kulmayaa mayorka Bristol lordka haddii ilaahayna waxaana u nimi mataaninta waxa uu weyn isku xidhka Hargeysa iyo Bristol بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf weyn maanta noo ayna halka ku soo dhaweeyno maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa mudane Cabdicasiis runtii waxaan doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo dadaal badan bay xukuumadda Soomaaliland gashay oo ah sidii muxuu dirdir loo gelin lahaa sidii magaalooyinkeena iyo dalkeena loo horumarin lahaa xiriirkeena caalamiga ahna loo ballaarin lahaa talaabadan aan maanta sameynayna waxay ka mid tahay talaabooyinkaasi aan ugu talagalnay haddii Ilaahay ka dhigo waddankeena magaalooyinkiisa isku xidhan magaalooyinka caalamka maayirku wuxuu u yimid oo kulmi doona maayirka magaalada Bristol iyadoo aan magaalada Bristol iyo Hargeysa doonayna mataanayno qorsheedana galayno sidoo kale magaalooyinkeena kale ee Burco Boorama Laascaanood Berbera aanu magaalo kasta ku tala jireen magaalo kale ku xidhno si ay waay aragnimada iyo isu dhaafsadaan waxtarna waxa ay ka hesho magaalooyinkeena waan ku faraxsanahay inuu maayirku laga soo aqbalay imaansha halkan aad iyo aad waxaan mahadnaqayaa jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta joogto iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland wararka TV-ga qaranka Soomaaliland London